ciidamada BSF ayaa maanta waxay ku wareejeen deeq dawaa maamulka cisbitaalka guud ee degmada Baran. ciidamadan ayaa waxa horkacayay taliyaha ciidamada BSF gaashaanla sare Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac. deeqdan dawada ay ku wareejeen ciidamada BSF maamulka cisbitaalka guud ee degmada Baran ayaa waxa goobjoog ka ahaa goobta lagu kala wareegayay gudoomiyaha gobolka Sanaag, taliyaha ciidamada daraawiishta ee gobolka Sanaag, nabadoono, saraakiil iyo waxgarad kale. waxaa sharaf noo ah maanta oo bishu tahay 30 August inaan dhimaano degmada Baran ee gobolka Sanaag. waa la socotaan ciidanka BSF wuxuu ka mid yahay ciidamada difaaca dalka Puntland. sidaas darteed difaaca dalka iyo amniga sugudiisa kaliya ma aha ciidanka BSF wuxuu ka qayb qaataa horumarinta dalka iyo wixii dhibaato oo dalka soo gaara sida abaaraha iyo wixii lamid ah oo ay ka qayb qaataan. sidaas darteed maanta degmada Baran waxaan keenay dawadan aanu keenay waa dawo isugu jira noocyo fara badan oo dawo quality ah oo aad u wanaagsan. dawadaas waxaan rabnaa inaan ku wareejino maanta oo taariikhdu tahay 30 bisha August agaasimaha guud ee cisbitaalka dhammaan inaan ku wareejinaan rabnaa hadda saacadan laga bilaabo. sidaas darteed uma horeyso degmada Baran daawooyinka aanu geeyno dalka Puntland uma horeyso meelo fara badan baan geeynay dawooyin baan geeynaa wax ka qabad fara badan baanu geeynaa. aad baan ugu faraxsanahay dawooyinka noo keentayna waa idinka gudoonay wixii kale oo aad qabanaysaan oo dhireyntaas ay ka mid tahay insha Allah taala waan idinka gudoonay waan ku faraxsanahay waan ku mahadsantihiin. dawooyinkuna runtii baahi baa loo qabay isbitaalku waxa weeye wuxuu u adeegaa gobolka intiisa badan. dawadana waxa weeyaan runtii waa dawo u baahnaa maadaama uu yahay isbitaalka kaliya meesha ka shaqeynaya oo taageeradiisu ballaarnayn. aad baan ugu mahad celinaynaa dawada isbitaalka soo gaadhay oo aad ugu soo deeqdeen ciidamada BSF iyo madaxa guud ee BSF. runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa mahad leh. ilaahay maanta halka isugu keenay. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ciidamada BSF oo runtii xaqiiqdii wax badan deegaanada Puntland ka qabtay say sheegayeen dhareynta iyo caafimaadka iyo arrimaha bulshada ugu horeeyaan maantana cisbitaalka Baran soo gaarsiiyay sida hadda noo sheegayna jaamacadda Maakhir ay dhareynayaan. aad baan idinka mahad celinaynaa waan idinku soo dhaweynaynaa. inta nooga soo badiyo oo deegaan ballaaran halaga sii badiyo iyadoo aan ogahay xaqiiqadii mas'uuliyiinta sare hay'addu inay diyaar u yihiin inay yimaadaan deegaanka inay wax la qabtaan deegaanka inay wax badan wax ka qabtaan. sidoo kale saraakiishii horkacaysay ciidamadan ayaa waxay booqdeen dhismaha cusub ee jaamacadda Maakhir maadaama ay ciidamada BSF qorsheynayaan in ay dhireyn ku sameeyaan dhismaha jaamacadda Maakhir ee magaalada Baran. waxaana dhireynta ay ciidamada BSF ka sameynayaan jaamacadda Maakhir ay qayb ka tahay dhireyn ay ciidamadu ka wadeen wadooyinka magaalooyinka waaweyn, xarumaha waxbarashada iyo goobaha dalxiiska ee gobolada Puntland. dhireyn baanu ku beeray dalka waa la socotaan magaalada Boosaasood waxaanu ku sameynay dhireyn jidadkeeda qaabka ay hadda dhirtaas u soo baxday iyo quruxdeeda iyo bilicdeeda waxaan u maleynayaa qof kasta inuu isha ku arkay ee aysan ahayn wax afka kaliya laga hadlayo. waxaan kaloo ku sameynay dhireynta gobolada Puntland qaybo ka mid ah sida gobolka Karkaar, Nugaal, Mudug, magaalada Gaalkacyo kulli waa ku sameynay. haddana waxaan rabnaa inaan dhireyn ka bilowno haddii Ilaahay ma jaamacadda Maakhir oo aan rabno ayadana inaan hadda tagno oo aan cabiro inta ay qaadan karto dhir jaamacaddu oo aan cabirkeeda hadda sameeyno. sidaas darteed sharaf bay noo tahay maanta inaan halkaan nimaadno degmada Baran. xasan Ismaan Xasan TV-ga idaacadda dowladda Puntland Baran.